بالأنهار يبدو عاليا في جوف طير روحه بحواصل في جوف طير روحه بحواصل سيرى الرفاق ويلتقي أصحابيا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa. darsigan wuxuu ka bilaabanaa aayadda 57 ee min suurati albaqara. qaala allahu tabaaraka watacaala: wadallalnaa waan harinay ayuu ilaahay yidhi, calaykum reer bani israa'iil oo dushiini waan idin harinay, alghamaama daruurihii ayaan idinku harinay, wa anzalnaa waan dejinnay ayuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala, calaykum korkiini almanna xabag cireed ama malab cireed ayaan ku dejinnay, iyo wasalwaa shimbirihii buurbuurnaa. kuluu min tayibaati waqulnaa lakum usoo qadar waxaan idinku nidhi kuluu cuna min tayibaati maa shay kuwiisun wanaagsan wax kamid a cuna, rasaqnaakum aan idinku irsaaqnay, wamaa dalamuuna ilahi wuxuu yidhi ma aanan dulmin reer bani israa'iil, walaakin asaati kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna kuwii dulmiya anfusahum neefiyaalkoodii. ilaahi subxaanahu watacaala aayaddan wuxuu nooga waramaa nicmaduu u galay, yacni nicmadii aadka u weynay reer bani israiil u galay, sidaasuu nooga waramaa. ilaahi subxaanahu watacaala yacni markii daruur ayuu yani dushooda ku hariyey, markii tiiha galeen iska dawareegii uu ku dhacay, yani qoraxda aadka u kululayd xilligii tiiha iska dawareegsanaya wa 40kii waxaan ku tegi doonaa suuratu insha allahu maa-ida. iska dawareegaas markay ku jireen tiihaasoo yani nebi muuse iyo nebi haruun ay ku dhinteen, intay meesha tiihaas ay ku jireen iska dawareega qoraxda ilaahi subxaana watacaala wuxuu ka hariyey, yani daruur ayuu dushooda istaajiyey, qoraxduu ka celiyey. cirkan waxaa loogu soo dejiyey yani malab, yani malab cireed ama xabag cireed. malabkaas waxaa loo saaray dhagxaanta subaxay ka foqfoqsanayeen iyo geedaha halkaasay ka cunayeen. shimbirana ilaahi subxana watacaala usoo dejinayay ay iska cunayeen. nicmadaasu ilahi nooga waramaa. ilahi wuxuu yihi wadallalnaa calaykum reer bani israa'iil waan idin harinay korkiini yani dushiini waan harinay, alghamaama daruurihii aan idinku harinay, wa anzalnaa calaykum waxaan idinku soo dejinnay almanna xabag cireed ama malab cireed, iyo wasalwaa shimbiro buurbuuran iyo malab iyo geedaha loo saara iyo dhagxaantii. waqulnaa lakum waxaan idinku niri soo qadaro kuluu cuna min tayibaati maa shay kuwiisun wanaagsan xaggiisa ka cuna, rasaqnaakum aan idinku irsaaqnay, wamaa dalamuuna ma aanan dulmin qoladaas reer bani israa'iil iyo bani aadamkao dhanbu, walaakin asaatee kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna kuwii dulmiyo anfusahum nafyaalkoodii. qaala tacaala, ilahi wuxuu yihi jala jalaaluhu, ilahi wuxuu subxaanahu watacaala: waid qulna dkuluu wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow, id waqti xusuusta qulnaa aan nidhi udkuluu reer bani israa'iilow gala haadihi qaryata magaaladan gala, magaaladaasn waa baytulmaqdis, fakuluu cuna minhaa qaryada xaggeedii ka cuna, xaysu meel alla meeshaad shiitum aad doontaanna wax ka cuna, raqatan ay aklan cunis cuna, yani cunid cuna, cuntadaasoo raqadan ballaaran, wadkuluu gala yani magaalada wadkhulu qaryata magaalada gala, albaaba albaabka ka gala, sujadan saajidiina xaal aatiin kuwii sujuudsanna gala, waquuluu dhahaya markaad magaalada galaysaan dhaha, xidatun waa qabar mubtada usoo qadaro, mas'alatunaa annaga mas'aladeen iyo su-aasheeni allow su-aasha aan ku weydiisanaynaay, xidatun waa dembi ridis, sidaas dhaha, nakfir lakum annagana waan idin dhaafeynaa haddaad sidaas tirahdaan, khadaayaakum gafafyaalkiina iyo dembigiina waan dhaafeynaa, wasanasiidu waan u ziyaadin doonaa uu ilaahay yidhi almuxsiniina kuwa wanaaga fala oo muxsiniinta ana ajran u ziyaadin doonaa. ilahi wuxuu yidhi fabadela aladiina kuwii yuhuudda ah way bedeleen biladii usoo qadaro biladii qiila lahum hadal, fabadela aladiina kuwii way bedeleen dalamuu dulmiga falay waa reer bani israa'iil, fabadela aladiina kuwii way bedeleen dalamuu dulmiga sameeyey
biladii qiila lahum hadalkii dhaha lagu yiri bedeleen qowlan hadal ayay ku bedeleen hadalkaasoo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum dhaha lagu yiri faanzalnaa markaasaan waxaan dejinay u yiri ilaahay cala aladiina kuwii dushood waxaan ku dejinay dalamuu dulmiga sameeye waa reer bani israa'iile rijsan ay cadaaban cadaabaan ku dejinay cadaabkaasu min asamaai samada xaggeed ka ahaaday bimaa kaanuu yafsuquuna bisababi fisqihim faasiqnimadooda sababkood aan ugu soo dejinay ilaahay subxaana watacaala labadan aayood wuxuu nooga waramaa dhibkoodii reer bani israa'iil ilaahay subxaana watacaala yani markay galayeen magaalada waxaa haystay niman inkaar ku dhacdo oo yani masr magaalada masr waa markay galayeen ilaahay subxaana watacaala waa markii arlada baytulmaqdis ay galayeen waxay ka yimaadeen masr baytulmaqdis ay galayeen ilaahay wuxuu amray inay galaan dhulkaas barakaysan oo baytulmaqdis ama qudus inay galaan maxaa yeele waa dhulka dhaxalka ay leeyihiin reer bani israa'iil aabayaalkood oo nebiyaalkii dhammaan oo ka horeeyay oo yani reer bani israa'iil ah meesha yani deganaa jiray saa darteed meesha tagaa la yiri niman camaaliqa la yiraahdo camaaliq oo gaalo oo kafara ah meesha haystaan nimankaas la dagaalama dhulkaas oo qudus ah ka saara يعني دقة سيدي أبيالك ودقنايين وكاله يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم سيدا سألوغير هالكاس قلع الرأس بركيسانو لدايري سيدا ألوغير مركا قلع يسانو حاليري أذيكو يعني سجود سن قلع وإلهي سجود مركا حدنا تراهدان إلهي ودم إلهي فنكو دي سنين مركا سا إلهي سبحانه وتعالى واذكروا حسوس ريب بني إسرائيل إذ وقت قلنا عن نيري ادخلوا قال هذه القرية مقالة قال مقالة بيت المقدس علماء قارنا يعني مقعية كده كل شيئين لكن أريحاء الأداء هذه لكن سيدة صحيحة وبيت المقدس قال فكلوا عنا مرك منها مقالة حقي دي حيث مال على ماشى شيتم دونتان كعنا أكلا عنتان كاسوري غدا بلارن مقالة بركة يسوي عنتذاك عنا وادخلوا قال الباب كان كقال سجدا ساجدين حالة كوي سجود ذيك سجود سن أو ملح فورارنا قال وقولوا مركات قال يسان الدهاية أو ده حدة أي مسألتنا الله سؤاشي وحن كوي دي سنين هاي وحدة دمبريس حتى سيدا تراد أن نغفر لكم أنكم وندافعنا خضاياكم قفيالكم وسنزيد وزيادين دوننا أن أكردين دوننا المحسنين كوا وناقص السماء أجر إلهي وحيري فبدل الذين كوي ويبدلين ظلموا الظلم سميه ويهوده وحسوا قدرني بالذي قيل لهم هذا الكي ده لغيري ويبدلين قولا هذا اللي يكبدلين هذا الكاسو غير الذي أنا كي أهين قيل لهم ده لغيري هذا الكي يكبدلين محاوى نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث كي إمام البخاري صحيح سوكوريي من حديث أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قيل لبني إسرائيل reer banu israa'iil waxaa lagu yidhi udkhulu lbaaba sujadan waquluu xita war albaabka magaalada baytulmaqdis ama qudus albaabka ka gala adigoo sujuudsan waxaana tirahdaan allow dambiriisaan ku weydiisanina nabi wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fadaqaluu yazxafuuna calaa astaahum fabadaluu waquluu yani waxay yidhaahdeen xindatun ay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen ilahi wuxuu yidhi alayhi salaam way galan ayagoo gurguuranaayo ayagoo dabada ama salka ku siqaayo ayay si canuga yar u gurguurtoo kale ayay galeen waxaana la amray inay madaxa dhulka dhigaan madaxa dhulka ma dhiganay futadii ku gurguurteen waa midda labaadee sujuud inay sanka dhulka dhigaana la amray sujuud sanka iyo wejiga dhulka dhigaan markaas wuxuu yidhi cabdullaahi ibn mascuud fadaqaluu muqnicii ru'uusihim ay raaficii ru'uusihim khilaafa maa umiruu waxay galeen magaalada ayagoo madaxyaalkoodii cirka fiirinaya cirkay aadiyeen sanka cirkay u taageen madaxoodii koray aadiyeen يعني waxay khilaafayaan sujuudii diidayeen waa kibirkii iyo dabdarada ku jiro waa qoom inkaar ku dhacay had wax sidaan sameeyana waa qoladii muslimiinta ahayd waa oo reer Madiina kuwada muslimiinta yaa basaan aha macnaha dhib badnaa gaaladu maxaa maleynay marka nabi wuxuu yiri hadalkii dhaha lagu yiri dambi xidatun dambi ridisan ku weydiisanayaan waxay ku bedeleen xidatun ilaa waxbad qamadiyan ku weydiisan qamadiyan ku weydiisanayaan ay shaciir yiraahdeen marka sidaas oo ilaahay wuxuu yiri marka فأنزلنا مركي سيدا سيرادين وحن كسو دجيني على الذين كوي ظلموا ظلمي سمي رجزا عذابا كسو دجيني عذاب كسو من السماء السماء حقيتك هذه بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم فاسقنا مدو سبب كيس أيان كسو دجيني إلهي وحير سبحانه وتعالى وإذ استسقى واذكروا حسوس ريب بني إسرائيل إذ وقت حسوسته استسقى وراب دلبي موسى النبي موسى وراب دلبي لقوم كيسا وراب دلبي نو موسى قوم كيس أي وراب دلبي بيو وراب فقلنا وحان نري موسى اضرب كدفو بعصاك أشادي الحجارة دقح كدف دقحانت كميد
culimadu waxay yidhahdeen dhagaxan waxaa laga wadaa dhagaxii hadda ka hor dharka ka dafi jiray uu bursan jiray dhagaxaas waa suuratul yani lagu sheegay yani dhagaxaas waa yidhaahdeen qaarna waxay yidhahdeen waa dhagax un dhagaxaanta ka mid ah marka faqulna waxaan idrib ku dhufo bicasaaka ushaada alxajara dhagax oo dhagaxaanta kamid ah ku dhufo ama dhagaxii dharka kaa dafayo ku dhufo waxaa u qadaran fanfajarad faadaas ficil yani ay ku cadfanta ficil maxduuf ay ku cadfanta fadaraba wuu ku dhufta marka dhagaxii fanfajarad waxaa kasoo burqatay minhu dhagax xaggiisi itnataa cashrata caynan 12 ilood aa kasoo burqatay maxaa yeele iyaga waxay ahaayeen 12 jifi ahayn 12 jufo ama 12 qabiili ahayn reer bani israa'iil 12 jufi ahayn likulli sibtin min asbaatikum caynun yani jufo kasto oo jufadiina reer bani israa'iil ka mid ah yani waxay leeyihin hal il nabadoonkooda loo xil saaray 12 il walba yani qabiil kasta hal il ay leeyihin ama jufo kasto ilahi wuxuu yidhi qad xaqiiqi calima waa ogaaday kullu unaasin dad kastoo way ogaadeen mashrabahum makaani cabidoodii meeshay biyaha ka cabayaan ishooda way yaqaan waxaa le ishaas reer hebel waay ishaasna reer hebel waay ishaas kalena reer hebel macnaa qof walba meeshay biyaha ka cabayeen wuu ogaaday qad calima wuu ogaaday kullu unaasin mid kasto yani dad kasto mashrabahum meeshay biyaha ka cabayeen ayay ogaadeen waqulnaa allahuma waxaan ku niri usoo qadaro kuluu cuna washrabuu caba min risqi ilahi ilahay risqigiisa caba oo cuna walaa tacdu ha fasaadinina fi lardi dhulka korkiisa ha fasaadinina mufsidiin xaalatin kuwii fasaadinayo maadaama ilahi idiin nicmeeyey cirkana malab laydinkaga keenay dhulkan waxa laydinkaga keenay waayigii dambe ka horna ilaahay intuu nabi muuse uu waraab dalbay 12 qabiilbo ceel gaara ama il gaar la siiyey waa ilaahay nimcadiisii bal ilaahay kaga shukriya sidaa ayaa lagu yiri wallahu aclam wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed